soo dhawaada daawadayaal qodobada xiisaha leh caawa halkan ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn maamulka Somaliland ayaa dhowr iyo 10 caruur ah oo ka soo jeeda beesha Samaroon hal goob ku wada dilay iyagoona ku tilmaameen inay ahaayeen dad shufta ah haddaba daawadayaal maxaa ka jiro dadkaasi lagu sheegay shufta inay ahaayeen iyo in kale muuqaalkan ayaan rabaa inaan kula wadaago daawade sidoo kale qodobada xiisaha leh caawa halkan ku daawan doontaan waxa kamid ah ugaaska beesha Ciise ugaas Mustafa ayaa si carale uga hadlay dhalinyaradaasi sida foosh xun ee loo dilay ay u dileen ciidamada maamulka Somaliland iyo beesha Samaroon isku dhinaca balse ugaaska ayaa ballan qaaday inay jawaab degdeg ay ka bixin doonaan arinkan ay ku kaceen ciidamada Somaliland iyo beesha Samaroon isagoo sheegay inaanay la iskaga dabhari doonin oo jawaab cad ay ka bixin doonaan sidoo kale qodobada xiisaha leh caawa halkan ku daawan doontaan waxa kamid ah dagaal culus ayaa mar kale waxa uu ka qarxay xuduudda u dhaxaysa gobolka Awdal iyo Salel haddaba halkaasi oo xaalad halis ah laga soo warinaya caawa qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso leh oo saaxiib yaal ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa ilaa dhamaadka muuqaalkan nala dhameeso si aan kugu soo gudbiyo xaaladii ugu dambeeyay ee Awdal iyo Salel oo naqatay meel furin dagaal ah oo naqday dagaal goosgoos ah marba saacad inta la dagaalo ayaa lagu kala tagaa oo dagaalkii maalmihii dheeraa 4 maalin iyo 5 maalin qaadanayay waa soo markaas dhamaadeen maadaama bil Ramadaan lagu jiro labada dhinacba waxa ay markaas sameynayaan dib u gurasho oo mar ku dhufo ku dhaqaaqa ayay sameynayaan beelahan beesha Ciise waliba sidoo kale beesha Samaroon xaaladii ugu dambeeyay ayaan saaxiib yaal kula wadaagi doonaa ilaa dhamaadka muuqaalka nala dhameeso haddii aad markuu ugu horeysay fadlan kanalkan rukumo oo subscribe leh si ay ku soo gaaraan warbixinada iyo sheekooyinkan halkan ku daawacno mahadsanidin hagaag aynu ku bilaawno qodobada xiisaha leh aan ku bilaabi doonana waxa kamid ah xiisad markaasi ka dhalatay caruur lagu dilay deegaan ka tirsan maamulka Soomaaliland waa aan raade dhulka Awdal iyo Salel meel kamid ah ayaana markaasi caruurtan lagu dilay oo waliba caruurta beesha Ciise ayayna ka soo jeedeen maamulka Somaliland ayaana si gardaraha ku maagay waxaana ay ku tilmaameen inay ahaayeen dad shufta ah balse laakiin dad caruur ah ayay ahaayeen dadka markaasi ay laayeen ciidamada Somaliland iyo waliba sidoo kale kuwa beesha Samaroon maleeshiyaadkooda wararka ka imaanaya deegaan ka tirsan maamulka Somaliland ayaa sheegaya in tira caruur ah oo ay markaas la sheegay inay ka soo jeedeen beesha Ciise ayaa lagu dilay hal goob iyadoona maamulka ay ku eedeeyeen waa markaasi ku eedeeyeen in kooxdan ay ahaayeen koox shufta ah oo ay markaasi qowleysata ah ay halkaasi ku dileen balse laakiin waa dhalinyaro yar oo hadda soo ifbaxaysa ayaana ay ku laayeen iyagoona ka dhigay dad shufta ah dad beeraley oo xoolo dhaqasho ay ahaayeen oo waana markaasi inta ayay dileen ayayna dhaheen waxa ay ahaayeen dad shufta ah balse hadalkaas ayaana naqday mid ay u qaadan waayeen beesha Ciise iyagoona sheegeen inay jawaab degdeg ay ka bixin doonaan dhacdan ayaana si weyn ay u kicisay care iyo waliba sidoo kale murugo ku dhex alowsantay bulshada beesha Ciise iyadoona ugaas Mustafa oo si kulal uga hadlay falkaasi uguna markaasi tilmaamay mid ka baxsan bini'aadantinimada iyadoona maatida iyo dadka birmigeedada ah la dilayo ay tahay mid aysan markaasi aqbali doonin iyagoona ay sheegeen in ay jawaab midaan mid lamid ah ay bixin doonaan ugaaska beesha Ciise ayaa sidoo kale sheegay in deegaankaasi la wada joogo oo ay tahay in beesha Samaroon ay guuldarada ay iyagu ama oohinta ay iyagu ku dambeyn doonaan dhalinyaradan yar oo ay markaasi xoolo dhaqatay iska ahaayeen ayay ciidamada Somaliland iyo beesha Samaroon oo isgarabsanay ayay intay dileen waxayna ku tilmaameen inay ahaayeen dad shufta ah ilaa iyo 12 caruur ah ayaa la sheegay in hal goob lagu dilay waliba meedadkooda ay beesha Ciise ay aastay taas oo ay naqanayso in beesha Ciise ay markan ay u taalo inay gasha seefta kala baxdo oo ay mar kale weerar halis ay ku qaado walow aan loogeen dagaal beeleedyadan halkay ku dhamaan karaan haddana mararka qaar waxaad arkaysaa waxyaabo markaasi fool xun oo aysan markaa mudneen ayay sameynayaan beesha Samaroon iyadoo ciidamadii ay joogaan ayay ilmo yar intay soo qabteen ayay dileen kadibna ay uga carareen qaarkood oo dhaawacyo ah ayaa laga soo gaaray nafta ayaa ka sii baxday ilaa iyo 2 qofood waa 2 markaasi qof ayaa kaliya naqdeen kuwa badbaadeen kuwa kalena naf dhul lama dhicin oo maartay si arxan dara ah ayaa loo dilay hal goob ayayna beesha Ciise ay ku wada aasteen ugaaska ayaa sheegay inaanay tan la iska aqbali doonin oo ay naqan doonto mid ay ka shalayaan beesha Samaroon haddii ay sidaan wax ku sii socdaan maadaama iyagu dhibaato loo geystay caruurtii laga laayay
taasina ay sheegeen in wax loo qaadan kara aysan jirin maadaama dagaalku u dhaxeeyay dadka maaragtay waaweyn oo ay u dhaxeeyay balse laakiin in caruurta iyo waxyaabahaasi laska maro aysan jirin weliba dad xoolo dhaqata ay ahaayeen nolosha ayaan laafsiyey beesha ciise ayayna ka tirsanaayeen dhanka kalena haddii aan fiiriyona dagaal culus ayaa saakay mar kale ka qarxay xuduudda u dhaxaysa gobolada waa markaasi xuduudda markaasi u dhaxaysa gobolada awdal iyo weliba sidoo kale salal oo ah goob maalmihii u dambeeyey ay si weyn isugu farsaareen ciidamada beesha ciise weliba sidoo kale kuwa Samaroon beesha Samaroon ayaana halkaasi loogu guuleystay maleeshiya beeleed ka soo jeedo waa markaasi ka soo maleeshiya beeleed uu soo abaabulay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland kana soo jeedaan beesha Samaroon ayaana markaasi weerar qorsheysanaa ay ku soo qaadeen shacab markaasi xoolo dhaqata ah ee beesha markaasi ciise markaasi waa markaasi oo ka dhaqan guud ee gobolka Awdal ayayna markaasi weerarkan ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka beesha Samaroon shacab xoolo dhaqasho ah oo beesha ciise ah ayaa si adag markaasi isugu difaacay iyagoona waa markaasi iska caabin xoogan ay kala hortageen maleeshiyaadka waa markaasi maleeshiyaadka kuna jabeen weerarkii markaasi ay soo qaadeen tani ayaa noqonaysa mid guul weyn ay gaareen shacbiga beesha ciise maadaama ciidamo ay soo weerareen ay dhigti dhiig u dareen waa beesha Samaroon ayaa soo abaabulay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somaliland ayaa maalmihii dambaba halkaasi ka dhex shaqeynayay isagoona beesha Samaroon hub iyo weliba sidoo kale waxyaabo kala duwan uu gacan gelinayay dagaalkan ayaa ka dhacay deegaan u jira magaalada Boorama qiyaastii 80 kilomitir taas oo si istiraatiiji ah muhiim markaasi u tahay maadaama ay xaaladdu ay noqotay in beesha ciise la soo weeraro balse beesha ciise ayaa u wanaagsan haddii mar ay gacanta ay ka dhigaan magaalada Boorama ay noqon karto meel istiraatiiji ah oo ay markaasi ay ka talin karaan ama ay uga gacan roonaan karaan daawade haddii aad halkan la soo gaarto xataa qof qalbi wanaagsan waxaa sina asla kaaga codsanaya inaad kanalkan soo subscribe gareysid muuqaalkan la gareysiin share gareysa saaxiibada la wadaag si ay ku soo gaaraan warbixinada iyo sheekooyinka kala duwan ee halkan ku baahino waa kuma sin daawasho muuqaalka mas'alada maleeshiya beeleed ka soo jeedo waa markaasi ka soo maleeshiya beeleed uu soo abaabulay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland kana soo jeedaan beesha Samaroon ayaana markaasi weerar qorsheysanaa ay ku soo qaadeen shacab markaasi xoolo dhaqata ah ee beesha markaasi ciise markaasi waa markaasi oo ka dhaqan guud ee gobolka Awdal ayayna markaasi weerarkan ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka beesha Samaroon shacab xoolo dhaqasho ah oo beesha ciise ah ayaa si adag markaasi isugu difaacay iyagoona waa markaasi iska caabin xoogan ay kala hortageen maleeshiyaadka waa markaasi maleeshiyaadka kuna jabeen weerarkii markaasi ay soo qaadeen tani ayaa noqonaysa mid guul weyn ay gaareen shacbiga beesha ciise maadaama ciidamo ay soo weerareen ay dhigti dhiig u dareen waa beesha Samaroon ayaa soo abaabulay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somaliland ayaa maalmihii dambaba halkaasi ka dhex shaqeynayay isagoona beesha Samaroon hub iyo weliba sidoo kale waxyaabo kala duwan uu gacan gelinayay dagaalkan ayaa ka dhacay deegaan u jira magaalada Boorama qiyaastii 80 kilomitir taas oo si istiraatiiji ah muhiim markaasi u tahay maadaama ay xaaladdu ay noqotay in beesha ciise la soo weeraro balse beesha ciise ayaa u wanaagsan haddii mar ay gacanta ay ka dhigaan magaalada Boorama ay noqon karto meel istiraatiiji ah oo ay markaasi ay ka talin karaan ama ay uga gacan roonaan karaan daawade haddii aad halkan la soo gaarto xataa qof qalbi wanaagsan waxaa sina asla kaaga codsanaya inaad kanalkan soo subscribe gareysid muuqaalkan la gareysiin share gareysa saaxiibada la wadaag si ay ku soo gaaraan warbixinada iyo sheekooyinka kala duwan ee halkan ku baahino waa kuma sin daawasho muuqaalka mas'alada